السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقيبت شناد بوغا البحنمدي أضل يسويالكي الصوماليات قصد وحي نومرسي تاريخ ذا أغاسي ذا بيش سمرون قيبتي أفراد وحي وقدن بي أغاسكي كوبيو تبناد وحي نوقد بينا أغاسك اللبيو تبناد أغاس روبلي أغاس نور وحانو قراغو كبلابايا سيدة intaas kadib boqornimada waxaa la wareegay inankiisii ugaas rooble ugaas nuur oo ahaa rooblihii labaad waxaana la boqoray markii aabihii dhintay waana loo dhamaa boqornimadiisa waxaana lagu caleema saaray sidii caadada ahayd deegaankii marka horeba kuwa hore lagu caleema saaray ee bagi hooyadiina waxay ahayd Faadumo Xirsi caleema saarkiisii u horeeyay waxa ku tuuray Sheekh Barkhadle Cabdillaahi oo halkaa ku duceeyay ugaasku waxa uu ahaa nin haybad badan oo jidh ahaan xoogan oo dheer wuxuuna ahaa nin luga waaweyn oo kubab waaweyn leh oo madax weyn leh wuxuuna aad u jeclaa fardafuulka iyo ugaarsiga waxa uu ahaa ugaas rooble ugaas nuur nin xarakaad iyo dhaqdhaqaaq badan oo arrimaha ku degdega kuna hinaaso badan boqornimada waxa uu ahaa nin leynta maroodiga aad u jecel oo si kale uma jeclayne foolka maroodiga ayuu dawladaha kale uu hadiyadahan ugu diri jiray wuxuuna ku leyn jiray qorigiisa gaar ahaan qorigii laba aflaha ahaa ee uu Ismaaciil Baashi soo siiyay aabihii ugaas nuur haddii uu maqlo libaax ayaa dad wax leeyay waa uu doonan jiray libaaxaasi kamana uu baqan jirin xabadda markuu ridana dhulka xabaddu kuma ay dhici jirin oo shiishkiisu aad buu u toosnaa waxa uu ahaa ugaas shiish badan wuxuuna jeclaa ugaarsiga saddexdaa dawladood ee Ingiriiska Faransa iyo Xabashida mushahar ayuu ka qaadan jiray dadka ajaanibta ahna aad bay u jeclaayeen oo meel walba waa ay uga iman jireen wuxuuna siin jiray hargaha libaaxa iyo kashabeelka iyo foolka maroodiga wuxuuna adduunyada ku lahaa magac weyn isaga oo ahaa nin deeq badan oo saqiya oo haddii maanta hanti badan soo gasho waa uu qaybin jiray hantidaana waxba lama wahari jirin waxaa la sheegaa in uu ahaa ama ku jiray raggii ugu deeqda badnaa ugaasyada Samaroon waxaana mar walba la joogi jiray rag badan oo madaxda gadabuursiga ah reerkiisana waxaa habeen walba lagu qari jiray geel ama lo ama ari xoolo aad u fara badan si dadkoo idili ay u dhargaan mana aanu jeclayn inuu arko nin gaajaysan waxa uu ahaa nin diinta ku fiican waxa uu ahaa nin salaad badan oo soom badan mawliidka nabiga nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee habeen wal oo jimco ah waa uu sameyn jiray intaas haddii aynu kaga gudubno ugaaskaasi 12aad waxaynu u gudbaynaa ugaaska 13aad waa ugaas cilmi warfaa waxaan hore u sheegnay in dawladda Ingiriisku ay cilmi warfaa ku boqortay magaalada Seylac kulkii ay taariikhdu ahayd 1917 waxaanu ahaa nin ay isku dhawaayeen ugaas rooble waxayna ahaayeen ilmo adeer wuxuuna ku dhashay meesha la yiraahdo Geerisa sanadkii 1853 hooyadii waxa la oran jiray Shaqlan Cigaal boqornimadiisuna waxay ku koobnayd dhinaca Ingiriisku xukumayay waxaana boqoray ninkii Ingiriiska ahaa ee la oran jiray Sir Arshal kolkii ugaas rooble ka tagay dhinaca Ingiriiska ee uu tagay dhinaca Itoobiya sababta loo boqorayna waxay ahayd kolkii dawladda Ingiriisku ka qoosatay ugaas rooble sidaan hore u soo sheegnay wuxuuna ahaa cilmi warfaa nin aad iyo aad u dheer wuxuuna ahaa oo uu ku magac dheeraa cilmi dheere wuxuuna ahaa nin geesi ah waxaana la sheegay in libaax habeen u soo dhacay isaga oo golo hurda kolkaasuu libaaxii qoorta qabsaday kolkaa isaguna si degdeg ah wuxuu libaaxii si xooga u qabtay labadiisa dhagood kolka libaaxii uu isdhaqaajin kari waayay marka waxa uu yidhi isaga oo qaylinaya warbahalka waan hayaaye igu soo gaadha sidaasaana loogu gurmaday oo libaaxii lagu dilay waxaana jiray markii hooyadii Shaqlan Cigaal kolkuu aabihii guursanayay in uu ka bixiyo xoolo badan oo geel u badan kolka xoolihii abaar ayaa laysay hooyadii qoladii ay ka dhalatay waxa ay ku yiraahdeen ninka warfaa xoolo aan ku diiqno ma hayno ee aan ku nidhaahno ma xoolaad naga doonaysaa inaan kuugu ducayno mise inaan kuugu ducayno in ilaah ku siiyo inaan kun ciil ah kolka hooyadiina uur bay lahayd warfaa kolka waxa uu yidhi waxaan rabaa inaad iigu ducaysaan wiil kun ciil ah kolka cilmi baa dhashay isaga oo ilkihii u dhan yahay wuxuuna ahaa nin aad u faseexa badan oo xoog badan wuxuuna ahaa nin aad waxgarad u ah oo siyaasadda ku xeel dheer oo waxa soo socda si odorosi kara waxa kale oo uu ahaa nin dawladda Ingiriisku aad u jecel yihiin oo ay kala tashadaan arrimaha Soomaalida oo idil waxaanu ahaa Sir Arshal saaxiibkiisa u weyn kolka uu tago England wuxuu u keenay jiray hadiyado jubbada ah ayna kamid tahay jubbadii cusbayd ee dahab lagu dileeyay wuxuuna ahaa nin tolkii jecel geesi baanu ahaa intaas haddii isagana ku soo koobno taariikhdiisa ugaaskaasi haynu gudubno ugaaska 14aad waa ugaas cabdi haddii aan intaasi kaga soo noqono boqornimada waxa qaaday ugaas cabdi ugaas rooble
waxaana la boqray kolkii aabihii ugaas rooble uu dhintay sanadkii 1938 hooyadii waxay ahayd maryan warsame waxaana lagu boqray magaalada awbarre waqtigaa la boqray waxaa dhulka xukumayay dowladda talyaaniga dadkuna wuxuu doonayay in uu boqornimada qaato xaaji doodi waxaase arrintii ka hor joogsaday dowladda talyaaniga oo tidhi boqornimada waxaa leh curadka waxaana jirtay in uu kolkaa khilaaf soo kala dhex galay talyaaniga iyo xaaji doodi arrintaasaana ka hor joogsatay inuu xaaji doodi boqornimada qaado ugaas cabdi ugaas rooble waxa uu ahaa nin dheer waxaanuu ahaa nin xagga siyaasadda aanay waxba uga baxsanayn waxaanuu ahaa nin suufiya oo daacadnimo badan oo qur-aan akhris badan oo wakhtigiisa dhammaantiis ku qaata guriga iyo reerkiisa waxaanuu ahaa nin gooni socod ah oo aan dadka dhex gelin ugaas cabdi ugaas rooble wuxuu dowladda talyaaniga ka gaadhay sharaf weyn intii uu xukumayey talyaaniga gadabuursiguna waa uu kulmay caleemasaarkiisa iyo boqornimadiisa waxaana diiday boqornimadiisa reer keliya waxaana jiray kolkii uu ingiriisku soo noqday ee uu xidhay xaaji doodi in uu tegey ugaas cabdi reerkiisa oo aanu halkaasi ka tegin ilaa intii uu ka dhimanayey taariikhdu markay ahayd 1941 ugaaska 15aad ugaas doodi ugaas cabdi waxaa haddaba xilka uga dhaxlay oo uga dambeeyey ugaas doodi ugaas rooble waxa uu ahaa siyaasi weyn oo ahaa nin diinta islaamka aad u yaqaan waxaanu ahaa nin cas oo dheer oo awran oo qofkii arkaaba uu jeclaado waxaanu ahaa nin haybad badan oo siyaasadda aad ugu xeel dheer waxa kale oo uu ahaa nin dowladda xabashida darajo weyn ka gaadhay oo luuqadda xabashiga aad ayuu u yaqaanay waxaanu ahaa nin tulkiya aad u jecel yihiin iyo dadka kaleba waxaanu ahaa nin fasaaxad badan oo halka uu ka hadlo aanay cidi ka daba hadli jirin waxa uu ahaa ninkii intii uu boqornimada hayay aabihii isna boqor oo kale ahaa oo aabihii ka awood badnaa waxaana jirtay sidii aan hore u sheegnay ee aan ku soo sheegnay xagga hore taariikhdii aabihii dowladda ingiriiska wafdi u soo dirtay oo dowladda ingiriiska u yeedhay kolkaa waxaa joogay boorama nin la odhan jiray mujiir ran ninkaasi kolkii uu xaaji doodi u tegey aad iyo aad ayuu u soo dhoweeyey wuxuuna ku yidhi adigu waxaa tahay nin siyaasi ah oo weyn oo dadku jecel yihiin wixii xukuna ee dhulka gadabuursiga ku aadan labadeenna ayaa ka wada tashanayna oo anoo keliya ma goyn karo in yar kadib waxaa la beddelay mujiir ran waxaana lagu beddelay mujiir walash kolkii uu mujiir walash la wareegay xilkii boorama in yar kadib wuxuu meesha ka tuuray kursigii xaaji doodi sababtaas oo ay sameeyeen rag madaxda gadabuursiga ka mid ahaa sidii aan hore u soo sheegnay kolkaa mujiir walash dhib badan ayuu u geystay ilaa uu xaaji doodi uu u baxsaday ilaa xabashida taasoo keentay in xabashidu soo dhoweysay oo ay siisay askar badan oo la odhan jiray wataatar aanay xabashidu u dhiibtay xukunkii gadabuursiga gaar ahaan gadabuursigii deganaa xaggaasi in yar kadib kolkuu helay askar fara badan waxa uu xisaar iyo go'doomin ku sameeyey magaalada boorama oo uu diiday in ay wixii cunto ah ee tegi jiray boorama iyo xooluhuba ay joogsadaan arrintaas oo ingiriiska cadhab badan u keentay oo uu aad iyo aad uga xumaaday arrintaas oo gadabuursigu dhexdiisa ku keentay khilaaf badan waxaa jiray markii dowladda talyaaniga ay qabsatay etoobiya inay xaaji doodi si fiican u soo dhoweysay ayna siisay suldad weyn ayna ula dhaqantay sida boqorrada oo kale waxaana jirtay markay taariikhdu ahayd 1940 in uu doodi ahaa ninkii qabsaday oo ka madax ahaa askartii la odhan jiray manavrego isagoo dowladda talyaanigu kula heshiisay haddaad qabsatid boorama dhulka gadabuursiga ayaa gacanta lagaa wadagelin doonaa dowladda talyaaniguna way kula shaqayn doonaa in yar kadib waa laga xoog roonaaday talyaanigii oo ingiriiska ayaa ku soo noqday dhulka guud ahaan kolkay taariikhdu ahayd sanadkii 1941 bilowgiisii markaa sarkaalkii ingiriiska ahaa ee la odhan jiray sherley khudbaddiisii u horreysay markii ay dhulka ku soo noqdeen wuxuu ku yidhi dad badan baa talyaaniga la shaqaystay intaan dhulka ka maqnayn waxaanan cafinay dadkaas 2 nin mooyaane labadaas nin waxay kala yihiin xaaji doodi ugaas iyo faarax omar intaas haddii aynu kaga gudubno ugaaska 15aad kanna waa ugaaska 16aad ugaas rooble ugaas doodi boqornimada haddaba waxaa qaaday wiilkiisii rooble waa rooble ugaas doodi oo ahaa rooblihii saddexaad wuxuuna qaaday boqornimada kolkay taariikhdu ahayd 1952 boqornimadiisuna waxay ku koobnayd gadabuursigii deganaa dhinaca etoobiya hooyadii waxay ahayd saxarla barkhadle waxaanu ahaa nin sidii aabihii aad u qurux badan oo dheer waxa uu ahaa nin dadku aad u jecel yihiin waxaanu qabtay intii uu boqorka ahaa arrimo waaweyn waxaanu ahaa nin degan oo dabeecad wanaagsan wuxuuna ahaa dhinaca kale nin siyaasi ah sidii aabihii oo kale dowladda etoobiya aad ayay u jeclayd isaguse ma aanu jeclayn oo wuxuu weligii la socday dowladda soomaalida oo arrimo waaweyn uu u qabtay dowladda soomaalidu markii ay jigjiga weerartay sanadkii 1977 ee dowladda etoobiya aad ugu jabtay halkaas ee ciidanka soomaalidu dhufayskii kaaraamardha la jiiday ee xabashida si xun loogu laayay halkaasna si xun loogu galay niman xabashi ah ayaa weeraray gurigii ugaas rooble ugaas doodi
ee ku yaalay magaalada Jigjiga dhexdeeda. halkaasayna ku dileen. waxa kale oo ay halkaas ku dileen xaaskiisii, markaasi oo ay ahayd markii ay magaalada ka baxayeen, waxaana lagu aasay ugaas Rooble Xerogeel kolkii ay taariikhdu ahayd sanadkii 1977. intaas marka aynu ugaaska 16aad kaga nimaadno, kanina waa ugaaskii 17aad, Cabdirashiid ugaas Rooble. markii haddaba la dilay ugaaskii hore, ugaas Rooble ugaas Doodi, waxaa xilka boqornimada qaaday wiilkiisii Cabdirashiid ugaas Rooble markii uu sanadku ahaa 1985, sababta oo ah intii ka horreysay isaga oo ahaa wiil yar oo iskuullada Xamar wax ka barta, oo kolkii xabashidu aabihii dishay waxa uu soo booqday oo uu yimid magaalada Xamar, wuxuuna jaamacaddii dhamaystay kolkii ay taariikhdu ahayd 1987. waxaana jirtay intuu jaamacadda ku jiray in 8 nin oo madaxda gadabuursiga ka mid ahi ay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre la shireen, ayna kula shireen xafiiskiisa markii ay taariikhdu ahayd sanadkii 1985. raggaasi oo kala ahaa sida tan: 1 Xaaji Ibraahim Nuur Jaamac, 2 Xaaji Abubakar Sheekh Cumar, 3 Xaaji Jaamac Maxamed, 4 Xaaji Daahir aw Cilmi, 5 Xaaji Xasan aw Cali Mataan, 6 Cali Xuseen Cabdilaahi, 7 Cabdilaahi Jaamac Maxamed, 8 Saleebaan Habane oo loo yaqaanay Cambalaash. raggaasi oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre hortiisa ka cadeeyay in ay isku waafaqsan yihiin, ayna yidhaahdeen annaga oo ah madaxda gadabuursiga waxaan halkan ku cadaynaynaa in ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble uu yahay ugaaska gadabuursiga oo maanta wixii ka dambeeya uu yahay boqor sharci ah. madaxweynuhu arrintaas aad iyo aad ayuu u soo dhaweeyey, waxaanu yidhi arrintaas aad baan ugu faraxsanahay, maanta intii ka dambaysana waxuu noqonayaa boqorrada Soomaalida ka mid ah, waxay xuquuq boqorradu leeyihiin oo waan siinayaa, mushaharkii boqornimadana waa u qaataa ilaa taariikhda aan ku soo xusnay. halkaas ayuu buugga ilbaxnimadii adal iyo sooyaalkii Soomaaliyeed kaga gudbay taariikhda ugaasyadii beelaha Samaroon oo ugu dambeeyey ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble. waa markii buuggan la qoriyey. tan iyo intaan mawduuc kale ka soo qaadan doona qaybaha kale ee buuggaasi ilbaxnimadii adal iyo sooyaalkii Soomaaliyeed, halkaas haynoo joogto. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.